ayaan ka tagay gobolada Puntland markii laga reebo intii aan sii maray soo mariyay mudug iyo nugaal ay kamid ahaayeen ama ay xaruntaba ku taalo kuwaas oo ahaa gobolka Galdafuud oo anoo 2 asbuuc kaliya jooga tagay iyo gobolka Sanaag oo xarun ka soo furnay wasaaraddu ay ku leedahay oo haatan shaqaysa kana tilmaaman xarumaha kale ee gobolada Puntland sanadka kan 2015 6 gobol ayaan tagnay qaybo kamida nugaal mudug sool cayn bari iyo karkaar waxaan inta u kuurgalayay waxay ahayd arrimaha ku wajahan ama caqabadaha jira ee markaa saameynaya bulshaweynta iyo muwaadiniinta reer Puntland yar iyo weynba runtii waxyaalo badan baan soo arkay isla markaana aanu ka falanqeynay waxna ka qabanay guulna aan ka gaarnay laakiin faanoola farika ma qadna waxaan ugu horeeyay wax weeyaan habkii looga hortagi lahaa tacadiga nooc walba ha ahaadee erayga tacadiga marka yara waxaad moodaa in cid walba si aysan u fasiranin isku mid ah inkastoo af Soomaaliga lagu wada hadlo haddana isku si wax la isku ma fahamsiin karo isku sina wax la isku ma sheegi karo siyaabo kala duwan ayaa cilmi nafsi ahaan xataa wax la isugu sheegaa waxaa jirta tacadiga markii laga hor imanayo ama wixii dhibaatooyin ama shaqaaqooyin ee qofka bini'aadanka ah lagu hayo rag iyo dumarba caruur waayeel ha noqdaan dhanka waxbarashada dhaqaalaha horumarka guud xornimada uu qofka ku hadli karo iyo in nafsadiisa la difaaco wuxuu qorshaheena ahaa sanadkii hore in wax badan iska bedelo waayo sanad weeyaan waxaan tirsanayno 16 cisho kaliyana kuma wajahnay waa wax maalin walba aan sameynayno asbaabahaas ay kamid ahayd sababtii aan asaasnay waax khaas u ah arrimaha qoyska iyo wacyigelinta diinta waxaana doonaynay inaan ka soo galno arrimahan ka hortagga tacadiga dhanka diinta haddaba qofka bini'aadanka markii wax loo sharxo oo afka uu wax loogu sharxo uu wax ku fahmayo loogu sheego wixii waa ka dhaadhacayaan waa uu aqbalayaa wuxuu go'aansanayaa inuu ku dhaqaaqo oo uu ficilkeedii la yimaado deetana uu hirgeliyo la qaybsado dadyooga kaleeto marxaladahaas markuu qofka soo maro ayay u suuragalaysaa inuu isbeddelka dhabta ah ee doonayno ee looga hortagay tacadiga ay timaado laakiin haddaan la isfahmaynin welina aan leenahay ummad isku afaanu nahay waxaa naga dhexdhacaysa wareerkii ka dhexdhacay sheekadii aan idinla qaybsan doono macooyi macaani iyo awqowdhan macnahana saad ila fahamtaan sheekada inaan idinla qaybsadaan jeclahay markii Soomaaliya ay koonfur iyo waqooyi isku darsoontay baa nin wadani ah oo dadka jecel oo dambi baara ahaa oo Hargeysa deganaa wuxuu go'aansaday inuu Muqdisho aado awqowdhan Muqdisho uu soo aaday shaqadiisa ugu horreysay wuxuu ka bilaabay kiis ka dhacay Xamarweyne kiiskii meeshii buu yimid nin baa lagu garaacay oo si xun dhaawac loogu geystay meeshii markuu yimid buu yiri waar maxaa meesh ka dhacay kuwii marqaatiyada awqowdhan oo police macooyi macaaniyaas ahay معوي معاني معوى صوبودي معاني أسوأ أسكت هاي بحشاتي جيرياو معاني إيه معوى إيش بعد وين ونو كاني ماني واكل علينا بس ترى واسكري أو قولنا كيس كينو فهموا رباعي وحي ماش كدع لكن ما فهمي كريو وحي أفكي وحكو فهمي لما لوجو شيءين waxay noqotay
qof anoo kale in loo waco labada dhanba fahmaayo oo uu u sheego wixii ka dhaadhiciyo halkaas kiiskii lagu xiliyo laakiin intay taa dhicin maadaama isagii waqooyi ka yimaaday waqooyina uu ingiriiska gumaysan jiray koonfurtuna talyaaniga gumaysan jiray baastar isaga wuxuu yaqaanaa baastar oo kaleeto waar baastariinta gabigoodaba ku uruuriya saldhiguu yidhi gadaalaa looga sheegay inay ahayd waa dhammaato inuu ka waday markhaatigii taa waxaan oga soo wadaa hadday annaga dhexdeenna aynaan isfahmin caqabadaha nagu wajahana ma fahmi karno sidaan rabnana wax isuguma sheegi karno ugumana midoobi karno inaan ka hortagno dhibaatooyinka dibdhaca noo keenaya isla markaana waxaa dhalanaysa marxalad aynan xataa ula jaan qaadi karin ogana warqabi karin ummadaha hore u socda ee ka tallaabsaday shaqaaqooyinka ku wajahan in gabdhaha loo diido waxbarashada gabdhihii oo la jirdilaayo la bahdilaayo magaalada tan waxaa nala jooga gabdho feero kulul iyo lagu gubay iyo shaah iyo dab lagu gubay haddana saasooy tahay aan marnaba xafiiskeenna iman saldhigga tegin xafiiska xuquuqul insaanka aan tegin aaminsan haddii ay ninkii ka soo tagto uu furo nin kaloo guursanaya aysan jirin ilmihiina lagu dayacayo aaminsan haddii ay ka hadasho in dhibkaa dhib ka weyn uu u imanayo sidaa darteedna ay u aragto dantii inay qarsato dhibkeedii waxaan idiin sheegayaa marka uma diin lahaanu nahay maalin walba waa odhan karnaa aan sidan iska dayno laakiin haddaynaan daacadnimo aysan naga ahayn ficilka aynaan la imaanin aynaan baahinin wacyigelintaan mar walba samaynayno qof walba habkuu u fahmaayo looga dhaadhicinin wax natiijo ama gaarayno mirana kama dhalanayaan hawshaanu mar walba u heelanahay ee ah in la difaaco haweenka qoyskii qoys caafimaad oo qurux badan uu noqdo caruurtay noqdaan caruur loo aayo mustaqbalka la kobciyo loona barbaariyo habkii diiniga ahaa ee markaa annaga danta noogu jirtay dabcan intii sanadkii hore nala joogtay way og tahay intaan nala joogina insha allah sanadka dambe waxaan jeclahay inaan madashan oga hadli doono waxyaalihii isbedelay sanadka soo socda orodkeenna iyo dadaalkeennana runtii ma aha keliya inaan xaflado qabqabsanno cabitaan cabno waxaan rabnaa inaan dareenno gabadha maalin walba la dilaayo gabadha ilmaha kusoo maxay ahayd isku furanka ku dhacaaya gabadha caafimaadkaan haysan waxbarashada haysanin badbaadada haysanin isla markaana aan haysanin qof u dooda waxaan rabnaa in bal intaan indhaha isku qabsanno qof walba iska soo qaado haddaad wiil tahayna inay walaashaa tahay ama hooyadaa tahay ama xaaskaaga tahay ama gabadhaada ay tahay qofka ama isku go'ayo qofka ama la bahdilaayo kirliga shaahoo kulul jirkeeda lagu shubaayo wax yar bal intaa indhaha isku qabsataan ila dareema arrinkaas indhiyaa soo kala haysaan ma rabtiin inaa sawirataan waxaan saas u leeyahay ragga qaar waxay tahay in aa ila baahisaan wacyigelintaan wasiirka haweenka waa laakiin wasiirka arrimaha qoyskana waan ahay qoyskuna waa bulshadii weeyaan waa dhalinyaradii waa aabbayaashii waa waayeelkii waa hooyadii xaaskii gabadhii walaashii wiilkii walaalkii haddaynaan marka dareemin xanuunkaas kan nala dhashay keliya aan u dareenno kan kalena maxaa iga galaanu nidhaahno oon dhibaatada sii wadno horumar ma gaarayno faquuqa aan u diidno diinteenna darteed innagoo ku dayanayna nabigeenna calayhi salaatu wasalaam cid ka khayr badanoo nool ma ay jirto haddaynaan isaga ku dayan karin cidda kaloon ku dayanayna waayo
ما عيد كلا جرتان كو دايان كرنو isaga ka khayr badan aanu istaagno maanta wixii ka bilowda wax kasto na ragaadin kara yeynaan ka baqin xaq laga baqana xaq daru u keenaa aan hilinka u xaaqno oon u diyaarino ummadeena jiilka hadda joogi kuwa soo socdaba sidaan u noqon lahayn ummad ku midowda ilaahay dartii Soomaalinimo iyo qabiil iyo laandheernimo iyo waxaas xaq iska dhig waxa faquuqa nagu keenay waxaas waa qof laandheer ama bajirabo laakiin in ilaahay dartii aan wax ku wada qabsano oo isbedelkana aan ku muujino waa macquul wiilkii ku dadaala hawsha in la yiraahdo manaaga u daba dhaqdaa ma daba dhilif baa tahay maxaa ka galay ma gabadhaada sidaas la yeelay laakiin adiga ilaahay dartii ayaad wixii u sameynaysaa wacyi gelintaad u baahinaysaa oo istaagaysaa gabadha muslimadda ee tacadiga lagu hayo gabdhahana sidoo kaleeto markii gabar la kufsado ama la dhibaateeyo iyada banaankaas wareegaysa ha aroonanina gabdha asturan oo wanaagsan oo waxaan u soo taagnaa la kufsaday mustaqbalkoodii dhan la baabi'iyay haddana saas ay tahay gabdhihii kale ay ku wiirsanayaan garab u noqdo gabdhaha walaalihiina waayo adiga haddii lagu kufsado maanta ma rabtid sharaftaada inay baaba'do mustaqbalkaaga inuu baaba'o ma rabtid masiibada kugu dhacday garab baad u baahan tahay in lagu siiyo si aad garabkaas u hesho adiga iska soo qaad qofkaas dhibanaha ah labadii dhan bulshaweyntii markay wada istaagto dantii guud ee isugu hiilisay ilaahay dartii iyo xaqii waxaa meesha ka baxaysa qabiilkii isfaquuqii kibirkii iyo dayalsigii la dayalsanayay waxyaalo aad u waaweyn ee annaga dib dhac noogu keenaya masiibana ma rabna waxaan rabnaa inaan hore u soconno ilaahay inuu ciqaabo ma rabna naxariistiisaan rabnaa insha Allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynayaa inaad ka qayb qaadataan inaad qalbiga gashataan maskaxda ka dhaadhicisaan anna garab aad igu siisaan sidii aan shaqadayda u gudan lahaa si aan u helno bulsho weyn caafimaad qabta aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay weynaa waaxidkan waxaan ka baryaa mar walba dadaalkan inuu noo hirgeliyo xafladda waan xiranaynaa waxaan rabaa inaan ku xijin